waxaa la soo gabagabeeyay codbixinta wareega koobaad ee doorashooyinka golaha deegaanka ee gobolka Ohio iyo gobollo kale gudaha Mareykanka ah inkastoo ay jiraan kuraas la shaaciyay in lagu kala adkaaday haddana qaar ka mid ah kuraasta sida adag loogu loolamayay oo uu ka mid yahay kursiga degmada saddexaad ee gobolka Ohio ee magaalada Columbus kaas oo ay ku tartamayeen Ismaaciil Maxamed iyo Kyle Habo waxa weli la shaacinin natiijadii kama dambaysta ahayd laakiin waxaa jira dabaaldegyo hore u dhaca oo loo sameeyay qaran Ismaaciil Maxamed oo hogaaminaya codadka inta la shaaciyay waxaase laga yaabaa in saacado ama maalmo ay qaadato ku dhawaaqista natiijada kama dambaysta ah boqolaal ka mid ah taageerayaasha Ismaaciil Maxamed oo isugu yimid goob lagu sugayay natiijada kama dambaysta ah ayaa dabaaldegyada kadib waxaa la hadlay Ismaaciil Maxamed Munira Cabdullaahi oo ku guuleysatay kursiga degmada sagaalaad xildhibaan Dantefias oo asaga laftigiisu ku guuleystay degmada koobaad maamulaha ololaha doorashada ee Ismaaciil iyo waliba Munira waalidiinta labada tartame iyo qaar ka mid ah kooxaha ololaha doorashada Ismaaciil Maxamed marka walaalayaal saa u dhawaajinay 37 cod horeyna runtii waa doorasho aad iyo aad u dhow codkii waa la tiriyay early voting uu dhamaaday election codkii uu dhamaaday waxa dhiman waxa la provisional ballots ballots-ka codadkaas waxa codka qofku markuu tago hoolka uu codeynayo oo ayda address ka qaldan yahay mise goobta uu ku codeynayo khaldan tahay wax cududaara khalad ku jiro mise tuhun ku jiro mugdi codkiisa waraaq buu ku codeynaya qofka codkaas gooni baa loo dhigayaa dad baa fariisanaya oo gacan ku tirinaya taa marka waa tiro aad iyo aad u yar anagu waxaan aaminsanahay cod 37 ah oo isbedel keenaya anagu ma aaminsan dhici doonto insha Allah dadaal fara badan kadib waqti fara badan kadib naftiisii oo soo dhisay siyaasadii si fiican u dhaxgalay kadib Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaray isla kursigii oo magacii laga bedelay oo loo bixiyay district 3 caawa oo taariikhdu tahay 2022 bishii August 2nd inuu Ilaahay ku guuleysiyay waxaan leeyahay mabruuk alf mabruuk walaalkay ma sha Allah Ismaaciil Maxamed iyo walaashay Munira Cabdullaahi runtii waa farxad inoo tahay Soomaali dhammaan waa awwal marra fi taariikh Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo ummadda Soomaalida Allah ha barakeeyo Soomaalida degan community Soomaalida degan Columbus ama gobolka Ohio waxa ay la hareen ma jiraan ama Ismaaciil haween gareeyo ama gabadha haween gareeyso insha Allah ta'ala hal effort lama harin kulligiin aad ba u mahadsantihiin insha Allah ta'ala waxa ajiib runtii ilaa oo aan marnaba ilaaweynin intii aan campaign ku jirnay dadkii faraha badnaayo noo iimaanayay iyo commentiyada ay bixinayeen waxaan marnaba ilaawen islaan indhala oo u loo haayo oo soo baxday oo tiri waxaan u yimid halkan in waxa la yiraahdo aan even though aan arkaynin indhihii lagu taabanayay laakiin qalbigaan ka garanayaa bay tiri Ohio has made history today Ohio waxay samaysay taariikh maanta guud ahaan Mareykanka waxa la soo eegayaa Ohio maxaa yeelay ma aanan dooran oo kaliya hal xildhibaan ee waxaan dooranay labo but we elected 2 There was a lot in our way waxaa jiray waxyaabo badan oo hor yaalay waxaa jiray dad oranayay inaanan dhaqaale aruurin karin waxaa jiray kuwa kale oo dhahayay Ismaaciil ma lahan xirfad ama shakhsiyad hogaaminimo waxaa jiray kuwa quursanayay sheegayeen in waqtigiisii uu dhacay laakiin waxaan u sheegay in Ismaaciil uu guuleysan karo iyadoo aysan jirin cid laga tagayo It's about making sure that we leave no person behind. waxaan jibnay arbaab furnaa xirnaa 30 sano waxaan u dagaalamayna wax kale ma ahayn a new generation we have made history we have changed Ohio we have changed Ohio's landscape and we will continue to change it this is just the beginning we will continue to change it we will continue to have our voices heard for too long we have not been heard we will continue to have our voices heard Allah subhanahu wa ta'ala mahad iskale guushan waa guul Soomaaliyeed waa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed leedahay gaar ahaan reer Ohio iskale hambalyaan leeyahay Munira iyo Ismaaciil